war degdega daawadayaal wararka ka imaanaya wadanka Mareykanka ayaa sheegaya in laamaha ammaanka wadanka Mareykanka ee FBI-da ee dambi baarista ay xabsiga u taxaabeen fanaanada Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Farxiyo Kabayare isla markaana dhawaan ka laabatay Soomaaliya iyadoo magaalada Hargeysa show ku qabatay. Fanaanadan ayaa waxa la leeyahay markii ay ka degtay garoonka Minneapolis ee wadanka Mareykanka ayaa waxa gacanta ku dhigay isla markaana airport-ka ku xanimay hay'adaha sirdoonka ee Mareykanka gaar ahaan laanta dambi baarista ee loo yaqaano FBI-da iyadoo la sheegay in fanaanada su'aalo lagu weydiiyay airport-ka magaalada Minneapolis oo ay ka soo degtay markii ay ka laabatay Soomaaliya. balse daawadayaal intaan u gudagelin halkani waa Galaangal Media, fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambaleelkana ha hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee dhageysta barnaamijyadeena. sidoo kale haddii aad aragtay muuqaalkan la wadaag saaxiibada wixii fikriya aragtiyana hoos noogu soo qor. waa ku mahadsantahay daawashadaada. aan u gudagalay barnaamijka fanaanada Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Farxiyo Kabayare ee dhawaan ka laabatay Soomaaliya ayaa markii ay gaartay wadanka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minneapolis oo ay saldhig ku leedahay ayaa fanaanada waxaa loo taxaabay xabsiga. sidoo kalena airport-ka ayaa laamaha ammaanka wadanka Mareykanka ay su'aalo ku weydiiyeen fanaanada Soomaaliyeed ee Farxiyo Kabayare ayaa sidoo kale la sheegaya in FBI-da ay su'aalo ka weydiisay tagitaankeedii Soomaaliya, sababtii Soomaaliya u aaday, maxay ka doontay iyo arrimo kale. dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa sharciyadeeda waxay ka mid yihiin inuusan qofka haysta baasaboorka wadanka Mareykanka ama sidoo kale deganaanshaha wadanka Mareykanka ee loo yaqaan green card-ka inuusan tagi karin wadamada ay ka dagaalamaan kooxaha loogu yeero argagixisada uu Mareykanku u yaqaan. sidoo kalena Mareykanka ayaa dhowr jeer digniino ka soo saaray muwaadiniintiisa inaysan u safri karin wadamada Soomaaliya ay jirto sida Afghanistan, Iraq, Syria iyo Yemen. sidoo kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa xayiraad ku soo rogay dadka Soomaaliyeed ee ka imaanaya gudaha Soomaaliya ama dadka qaxootiga ah. haddaba fanaanada Farxiyo Kabayare leeyahay waxay laamaha ammaanka wadanka Mareykanka ku haysteen inay wax isdaba mariday, sidoo kalena dhaqaale ka soo galay showyo ay iyadu qabatay iyo canshuuro aysan bixin ayaa sidoo kale fanaanada waxaa la leeyahay waxaa loo xirxiray inay ka qaateen sidoo kale ama laysinkii aan dhahe baabuurka ay ku wada jirtay. sidoo kalena waxaa la sheegay in fanaanadu ay iska bixi weysay lacagihii dowladda Mareykanka canshuuraha ay ku lahayd. waa sida ay noo sheegayaan ila xoogaal oo ku sugan wadanka Mareykanka. Soomaalida aan la xiriirnay ee wadanka Mareykanka sidoo kale noo sheegay in fanaanada markii dambe lagu sii daayay damaanad markii ay dadka Soomaaliyeed ee ku sugan wadanka Mareykanka ay damaanad weydiisteen fanaanadan. sidoo kalena Ilhaan Cumar ayaa la sheegay inay soo faragelisay arintan isla markaana sidoo kale ay Farxiyo Kabayare uga digtay inay Soomaaliya aado. sidoo kalena la sheegay in dhawaan lagu maxkamaday doono wadanka Mareykanka fanaanada. dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale dambi baarista FBI-du waxay ku soo oogtay fanaanadan inay safar badan u gashay Soomaaliya isla markaana dhowr mar ay tagtay wadamada bariga Afrika 2018 iyo 2019 iyo 2017 ayaa la sheegay in Farxiyo Kabayare ay socdaal ku kala timid wadamada ay Soomaaliya ay ka mid tahay. sidoo kale waxay tagtay wadamada Uganda, Kenya, Tanzania, Ethiopia. sidoo kale waxay tagtay Soomaaliya oo ay markii ugu dambeysay hadda ay ku qabatay show magaalada Hargeysa. fanaanadan ayaa noqotay fanaaniinta Mareykanka ugu socodka badan. sidoo kalena waxay dowladda Mareykanku ay ka shakiday iska dabalaabashada fanaanadan iyo sababaha ay Soomaaliya iyo bariga Afrika ay dhowr mar ugu safartay. dowladda Mareykanka ayaa waxay xayiraad ka saaran tahay dadka Soomaaliyeed inay ka safraan wadanka Mareykanka. sidoo kalena waxay il gaar ah ku hayaan meelaha ay u safrayaan dadka Soomaalida ah ee ku nool wadanka Mareykanka ama haysta dhalashooyinka wadanka Mareykanka iyo sidoo kale deganaanshaha. fanaanadan ayaa sidoo kale waxa ay dhowr mar tagtay Soomaaliya iyo bariga Afrika lamana sheegin sababaha ay ku timid. walow sanadkii 2017 ay timid magaalada Nairobi isla markaana ay ka waday gabar ay iyadu dhashay iyo mid kale oo ay walaalan yihiin oo lagu magacaabo Samsam Kabayare oo ay ka waday magaalada Nairobi. sidoo kalena ay ku geysay wadanka Mareykanka. dowladda Mareykanka ayaa dadka qaar waxay leeyihiin dadka ay geysay wadanka Mareykanka ee Farxiyo Kabayare ay qaaday ayaa waxa la leeyahay waxay ku geysay si sharci darro ah isla markaana aan waafaqsanayn xeerka iyo sidoo kale migration-ka Mareykanka ee laanta socdaalka wadankaasi. Farxiyo Kabayare ayaa hadda waxa ay xabsi guri ku tahay magaalada Minneapolis oo ay degan tahay. sidoo kalena waxaa la sheegayaa in booliisku sidoo kale ay su'aalo weydiiyeen. FBI-dana ayaa dadka inta badan Soomaalida waxay ku samaysaa dabagal.
Galaangal Media ayaa isku dayday inay wax ka weydiiso Farxiyo Kabayare suurtaaga lagu sameeyay isla markaana waxa ay sheegtay inaan loo ogolayn inay ka hadasho arrimahaas hadda waqti xaadirkan ay ka gaabsanayso inay faahfaahin ka bixiso balse dad u dhow oo la degan Farxiyo Kabayare ayaa noo sheegay in ilaa iyo shalay booliiska wadanka Mareykanku ay su'aalo weydiinayeen fanaanadan gaar ahaan FBI-duna dhowr mar ay gurigeeda tageen airport markii lagu xanimana ay damaanad ku sii daayeen kadib markii xildhibaanada Ilhaan Cumar ay la hadashay laamaha sirdoonka wadankaasi Mareykanka oo ay sheegtay inay iyadu damaanadeeda qaadayso wixii ka yimaada Farxiyo Kabayare maadaama ay tahay dadka ay matasho Ilhaan Cumar. haddaba arrintan ayaa noqotay mid dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Mareykanka si aad ay uga naxeen in fanaanada Farxiyo Kabayare ay laamaha ammaanka wadankaasi su'aalo weydiiyaan waana mid ay dadka Soomaalida wadankaasi Mareykanka ay si aad u la yaaban yihiin. Farxiyo Kabayare ayaa sanadkii 2017 safar qarsoodiga ku tagtay magaalada Kampala ee caasimadda wadanka Uganda iyadoo halka joogtay muddo 6 bariya sida ay sheegeen laamaha sirdoonka wadankaasi Mareykanka iyadoo aysan wax faahfaahina inta dheer aysan bixin balse dad ku sugan wadankaasi Uganda oo la xiriirnay laftirkooda ayaa sheegay in ay Farxiyo Kabayare timid wadanka Uganda gaar ahaan xaafadda ay Soomaalidu degtay ee loo yaqaan Kisenya halkaas oo ay dhalinyaro Soomaaliyeed kula kulantay sidoo kale waxaan helnay qaar ka mid ah dhalinyaradii ay la kulantay Farxiyo Kabayare magacyadooda sidoo kalena aanan halkan ka baahi karin sababa ammaan awgood Farxiyo Kabayare dhalinyaradaasi ay kula kulantay wadanka Uganda sidoo kale Farxiyo Kabayare ayaa waxa ay tagtay xerada qaxootiga ee magaalada Kampala ku dhow ee loo yaqaan Nikfali oo ay dhawaan booqatay iyadoo halka ugu tagtay dad ay xiriir lahaayeen sida la sheegay Farxiyo Kabayare. Farxiyo Kabayare ayaa sidoo kale waxa ay suuragal tahay in looga shakisan yahay inay wadanka Mareykanka ay geyso dad si sharci darro ah iska xambaar ah ama ay gadato laymanka wadankaasi Mareykanka lagu tago sidoo kalena ay Farxiyo Kabayare isku bedeshayba muqallas sida ay laamaha ammaankaasi wadanka Mareykanka qaarkood ay ku handacoonayaan. 28 bishan ayaa lagu wadaa in Farxiyo Kabayare maxkamad lagu soo taago wadanka Mareykanka isla markaana laamaha ammaanka wadankaasi ay wax ka weydiiyaan sida Farxiyo Kabayare ay socdaaladeeda iyo isdaba noqoshadeeda ay ku tagtay Soomaaliya waxaan idin la wadaagi doonaa arrimahaas iyo wixii ka soo kordha iyo Farxiyo Kabayare waxa ay maxkamaddu ku xukunto iyo haddii dambiye dheeraad lagu helo maadaama ay tahay fanaanad Soomaaliyeed ayaa dadka taageera Farxiyo Kabayare waxay si aad maanta baraha bulshada ay ku xiriirto ugu dhaleecaynayeen xariga Farxiyo Kabayare loo geystay ee wadanka Mareykanka. lama oga waxay ku dambeey doonto xaaladda Farxiyo Kabayare balse Galaangal Media wuxuu isku dayi doonaa inuu Farxiyo Kabayare xiriir la sameeyo isla markaana aan su'aalo ka weydiino dhacdooyinka isa soo taraya ee ka soo cusboonaaday fanaanada Soomaaliyeed ee Farxiyo Kabayare oo hadda xabsi guri ku ah wadanka Mareykanka iyadoo 28 bishan la saari doono maxkamadda sida ay noo sheegeen dadku agdhow Farxiyo Kabayare oo ku nool wadanka Mareykanka hadda waxaa suuragal in Farxiyo Kabayare laga mamnuuco inay mar dambe u safarto bariga Afrika ama guud ahaan qaaradda Afrika maadaama socdaaladeedu ay si aad u bateen dhanka kale wadanka Mareykanka ayaa xayiraadahan isa soo tirayay wuxuu ku soo rogayay dadka Soomaalida ah ee safarra wadamada bariga Afrika maadaama wadamadaasi ay ka dagaalamaan kooxaha wadanka Mareykanka lidi ku ah sidoo kalena Mareykanku muwaadiniintiisa uusan u ogolayn inay ka baxaan wadankaasi balse kaliya wuxuu wadanka Mareykanku ogol yahay qofku haddii uu la socodsiiyo waaxda socdaalka wadankaasi safarkiisa meesha uu socdo iyo sababta uu baxayo sidoo kalena waxay dawladda Mareykanku qofkaasi meesha uu tago ama wadanka uu tago kadib uu la xiriiraa safaaradda ama qonsuliyadda wadanka Mareykanku ku leeyahay wadanka uu qofkaasi tago iyadoo wadankaasi markuu tago kadibna ay safaaraddaasi ama qonsuliyaddaasi qofkaas ammaankiisa ay si aad ula socoto iyo dhaqaaqiisa iyo goobaha uu tago haddii uu xaalad dareemana sidoo kale waxay safaaraddu siisaa lambar emergency ah uu soo waco sidoo kalena ay dawladda Mareykanku waxay si aad u ilaalisaa muwaadiniintooda ku sugan wadamada daafihiisa kala duwan ma aha markii ugu horeysay ee dawladda Mareykanku sidoo kale ay degnin ka soo saartay inay wadamadaasi bariga Afrika ay gaar ahaan Soomaaliya ay u safraan muwaadiniintooda
qaraxii soobe ayaa la xasuustaa inay ku dhinteen muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo dowladda Mareykankuna maalmo ka hor ay ka digtay in dadka Mareykanka degan ee Soomaalida ah ama dadka wadanka Mareykanka u dhashay ay u safraan Soomaaliya. waa ku mahadsantahay daawashadaada. fadlan haddii muuqaalkan ay tahay markii kuugu horeysay channelkana Glangal Media, subscribe saar calaamada kambalelka iska hilmaamin. waa ku mahadsantahay muuqaalka daawashadaada. wixii aragti iyo fikirana hoos noogu reeb. muuqaalka like iyo share-kana hanaga masuugin. aad iyo aad u mahadsantihiin daawadayaasheena xiisaha leh iyo kuwa qiimaha badan ee daawanayaba.